Asalaamu calaykum waraxmatullah. Soo dhawaada saaxiibayaal, kuna soo dhawaada muuqaal cusub. Muuqaalkeena maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa ereyadii ugu dambeeyay ee Steve Jobs, milkiilihii hore ee shirkadda Apple. Is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. Steve Jobs, milkiilihii hore ee shirkadda kaalinta laad ku jirta ee samaynta moobilada, ayaa geeriyooday 5 bishii Oktoobar ee 2011 isagoo u dhintay cudurka kansarka, wuxuuna leeyahay dhimashadiisii ka hor. Waxaan gaaray meeshii ugu sarreysay ee ganacsiga, dadkuna waxay iga aaminsanaayeen inaan ahay nin dhan waliba oo nolosha guul ka gaaray, balse hantideeda aad ku faraha badan kadib, waxaan ahaa nin aan ku nooleen nolol farxad leh. Waxaan u malaynayay in nolosha taajirnimada aan ka helayo farxad, balse xilligan la joogo oo aan ahay nin uu xanuunka sariirta seexiyey, ayaa waxaan ogaaday in maalkayga faraha badan uu ahaa keliya mid aan ku faano. Waxaana noqday waayeel ciro leh iyo mid aan macno lahayn, oo wax uu sugaba ay tahay geeri un. Waxaad shaqaaleyn kartaa qof kuu kaxeeya gaari uuna lacag kuu keeno, balse ma heli kartid qof xanuunkaada kuu qaada aadna lacag ku siiso. Waxyaabaha dunida yaala inta badan haddii ay lumaan waa la heli karaa, balse waxaa jira wax aan la heli karin haddii la waayo, waana nolosha. Marka uu qof galo qaliin, rajadiisa ugu weyn ma aha inuu lacag helo, balse waxa ugu weyn uu rabo inuu helo ayaa ah caafimaadka, xitaa haddii uu ku bixinayo $1 bilyan. Marxalad kasta oo aynu ku sugannahay waxaa jiri doona waqtiyo adag iyo waqtiyo fiican, dadkuna si kala duwan ayay u wajihi doonaan. Haddii aad xiran tahay saacad qiimaheedu yahay $300 ama mid $30 joogto, waxa ay sheegaanba waa waqti isku mid ah. Haddii aad wadato gaari $300,000 joogo ama mid $30,000 joogo, waddada iyo fogaantu waa isku mid, keliya meesha aynu rabno ayaynu ku tagnaa. Haddii aad saaran tahay diyaarad shakhsi ah ama mid public ah, ogow in haddii ay diyaaraddu soo dhacdo, adiguna inaad la dhacayso. Waxaad ogaan doontaa farxadda dhabta ah inaysan ka imaan waxyaalaha adduunyo iyo lacagta. Wuxuu sidoo kale soo qaatay xaqiiqooyin ku saabsan nolosha, wuxuuna leeyahay: ha u barin carruurtaada inay taajir noqdaan, balse u bar inay noqdaan kuwo faraxsan, si markay weynaadaan aysan uga fikirin inta lacag uu shay joogo, balse ay ugu fikiraan qiimaha uu shaygu leeyahay. U cun cuntadaada si daawo ahaan ah, ama haddii kale dawadaada ayaad u cuni cunto ahaan, yacnii cun cuntada caafimaadka leh ee kuu wanaagsan. Marka aad dhalanaysay waa lagu jeclaa, markaad dhiman doontana waa lagu jeclaan doonaa, balse inta u dhaxayso adiga ayaa lagaa rabaa inaad xakamayso oo aad ilaashato jacaylkaas. Waxaa jira farqi weyn oo u dhaxeeya inaad tahay bini'aadam iyo inaad taqaanid bini'aadamnimo. Wuxuu ina leeyahay waxaa jirta 6 qodob oo ay muhiim tahay in lagu dadaalo, waxayna 6daas qodob kala yihiin: waxbarashada joogtada ah, kalsoonida nafta, nasiinada, howlkarnimada, jimicsiga, iyo saaxiibka wanaagsan. Wuxuu ina leeyahay haddii aad rabto inaad si dhaqsaha u socoto, keligaa soco, balse haddii aad rabto inaad meel dheer aaddo, la soco asxaabtaada.